gabadhan oo 29 jir ah ayaa hadda ka mid ah majaajilaystayaasha ugu caansan dalka Shiinaha waxayna bilihii ugu dambeeyay ku soo caanbaxday barnaamij ka baxa telefishin laga leeyahay dalkaasi toddobaad kasta waxay si xirfadaysan oo shacatiro leh oo la hadashaa malaayiin qof oo ay kala hadasho arrimaha jinsiga ee muranka dhaliyay iyadoo ay daawanayaan malaayiin qof waxay soo jiidatay taageerada dad badan balse erayadeeda shacatirada leh ma ahan kuwo dadka oo dhan ay jecel yihiin waxaana haatan Yang Li ay wajahaysaa dhibaato weyn oo dhanka xirfadeeda ahi bishii December ee sanadkii tagay ayaa waxay ka sheekaystay kaftan dhex maray iyada iyo nin kale oo isna majaajilaysta ah oo ay ka wada shaqeeyaan ka oo markii uu kaftankeeda ka yaabay ku yiri xadka dulqaadka ragga ayaa tijaabanaysa hase yeeshee Yang Li ayaa ugu jawaabtay raggu ma leeyihiin dad dulqaad ah arrintaasi oo ay dhaliil badan kala kulantay toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa ragga dalkaasi oo adeegsanaya baraha ay bulshada ku wada xiriirto waxay ku eedeeyeen inay tahay qof ragga necab dhanka kale koox sheegtay inay u dhaqdhaqaaqdo xuquuqda ragga ayaa ugu baaqday shacabka dalkaasi Shiinaha in Yang Li ay ku dacweeyaan hay-adda maamusha warbaahinta waddankaasi waxayna ku eedeeyeen inay marar badan aflagaadaysay ragga oo dhan ayna abuurtay nacayb jinsi ku salaysan hase yeeshee taageerayaasheeda ayaa waxay eedamahaasi ka difaaceen haweeneydan waxayna sheegeen in ragga gabadhani arrimahaas ku dhaliilaya in ay yihiin kuwo wax kasta dhibsanaya oo aan xitaa kaftan aqoon sheeko kuma jiro in kaftanka iyo ereyada maadaysiga ahi ee Yang ay dood cusub ka abuureen gudaha dalka Shiinaha halkaasi oo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka iyo majaajiladaba ay yihiin kuwo ku cusub bulshada dalkaasi haddaba dadka Shiinaha ma ogol yihiin in lagu maadaysto taa micnaheedu ma ahan in kaftanka maadaysiga iyo majaajiladuba aysan ku jirin dhaqanka dadka dalkaasi Shiinaha Xiang Xing oo ah dhaqan la xiriira majaajilada dalkaasi Shiinaha ayaa caan ka ahaa dalkaasi muddo qarni ka badan majaajiladani ayaa ah mid laba majaajilaysta uu muddo midka kale uu ku maadaysto iyadoo dad badan ay daawanayaan balse si ka duwan dhaqanka reer galbeedka dadka Shiinaha ma ay jeclaan mararka qaar in lagu maadaysto ama majaajilaystayaashu ay ku soo jeesadaan dadka daawanaya oo ay wax ka sheegaan ama dadka hortiisa ku kaftamiyaan marka la eego wadamada reer galbeedka in dadka lagu maadaysto iyo in xitaa laga xanaajiyo daawadayaasha mas'uuliyiinta ama xitaa wax laga sheego dhaqanka soo jireenka ahi ayaa ah qayb ka mid ah majaajilada ayuu yiri Tony Chu oo ah majaajilaysta ka howlgala magaalada Beijing balse arrimahaasi ayaa qaar ka mid ah dadka dalkaasi Shiinaha waxay u arkaan madax adayg iyo xurmo la'aan nin lagu magacaabo Zhou isla dalka Shiinaha ee ku sugan ayaa waxa uu sheegay oo uu tusaale ahaan u soo qaatay dhacdo uu u soo joogay oo ahayd in la dhibaateeyay nin majaajilaysta ah oo ku maadaystay dadka ka yimid gobolka Hinan arrintu waxay ahayd majaajilaystaha qudhiisa ayaaba ka soo jeeday gobolkaasi Hinan ayuu yiri Zhou sida awgeed ayuu yiri waxa marar badan dhacda in majaajilaystayaasha qaarkood ay u muuqdaan inay qarinayaan ra'yigooda shakhsi ahaaneed sababtuna ma ahan buu yiri oo kaliya arrimo la xiriira dhaqanka balse mararka qaar waxay ka baqayaan inay sameeyaan in saameyn siyaasadeed ama mid ganacsiba ay arrintaasi ku yeelato noloshooda arrinta majaajilaystaha haweeneydan lagu magacaabo Yang Li waxaa xitaa ku kala qaybsamay majaajilaystayaasha kale ee dalkaasi Shiinaha Jia Zhu oo ah majaajilista caan ah ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa Weibo waxa uu ku sheegay isna in Yang Li aysan ahayn majaajilista dhab ah qoraalkaasi ayaa waxa uu gaaray in ka badan 100 milyan oo qof oo akhristay hase yeeshee Chong Wong oo ah majaajilista u dhashay isna Shiinaha balse haysta dhalashada Mareykanka ayaa sheegaya in uu taageersan yahay qaabka Yang ay u soo bandhigto majaajiladeeda waxa uuna sheegay in majaajiladu ay dadka saboolka ahi fursad u siiso inay ku maadaystaan ama ay ku shacatiraystaan kuwa ladan